Tiwacan oo wanaagsan daawadayaal idaahatiina meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr qodob oo kamid ah ciyaaraha kala iibsiga suuqa ciyaartoyda iyo waliba naadiyaasha ciyaartoyda haddaba fadlan haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka oo sii share gareey haddii aad hore nala joogtana sheerta fadlan ha inaga ilaawin mahadsanidin aan ku bilaabay qodobkeena ugu horeeya Crystal Palace ciyaaryahankooda qadka dhexe kaga ciyaara Eze ayaa markaasi waxa uu loolan xoogan kaga jira kooxda inay qaadato oo ay hore ugu heshiiyeen in kooxda iyo waliba labada kooxteen laakiin qaabka ay Arsenal rabto inay ku dhiibto lacagaha oo ahayd 3 sano oo tartiib ah ay doonayso inay ku dhiibto 60 milyan oo pound oo lacagta lagu galan kara ciyaaryahankan Crystal Palace ayaa ka dhiidinayso doonaysay inay markaasi lacagtan ku hesho 2 sano gudahood 3 sano gudahood ay rabtay inay ku bixiso lacagtaas oo sanadkiiba 20 inay bixiso ay rabtaa sida ay ka dugan tahay xaalku oo waxa soo galay Tottenham Hotspur oo markaasi doonaysa in ciyaaryahankan haddaba maxaa isleedahay haddii Tottenham Hotspur ay ciyaaryahankan la wareegto ama kartaa kooxda Arsenal ma laga dulqaadi karaa ayaa isleedahay Arsenal iminka loolan xoogan oo dhanka kooxaha ka dhisan dalkaasi Ingiriiska Tottenham iyo Arsenal London waana ciyaaraha London derbiga haddaba saaxiib qodobkaas iyo wixii waxaan idin kala socodsiin doonaa faqadaad barnaamijkeena xiga ayaa markaasi idin kula socodsiin doona sidoo kale waxaa is arki doona ama labada ciyaartooy ee markaasi labada koox ciyaara maalinta hadda la soo dhaafa oo Premier League ciyaari doonaan kooxda Arsenal Manchester United Old Trafford ayaa Benjamin Sesko iyo Gyökeres haddaba ciyaartan waxaa doona labadaas ciyaartooy oo waliba Arsenal ay isla wada doonatay oo markaas midkiisa kala doonaysay in naadigiisa tiraado kana doonana haddii kan ay aad isku dayayso inay heshiiska markaasi laakiin kooxda RB Leipzig oo madaxeedba wax laga gada karaynin ayaa tagtay oo Arsenal ay markaasi inay Benjamin Sesko ay soo qaadato ayaa markaasi ku soo biiray kooxda 5 milyan oo pound ay RB Leipzig ka dhisan laakiin Arsenalna waxa ay ciyaaryahanka Victor Gyökeres ka soo qaadatay ciyaaryahankan Cobon ee ka dhisan dalkaasi Portugal aragnay bandhiga ciyaaryahanka Arsenal ay ka liidato garabka oo aanan awood u lahayn Martinelli ama quudiyo kubad soo laga soo dilay ciyaartoy meesteray in ciyaaryahanka la siiyo badanooda naqaano waa orda markuu ordayo ama kubadu wado laakiin ku fiican yahay waa dilo laakiin ma lahan waxaynu kor u qaado ee markaan baas oo siiyo kulamada oo dheelay Martinelli-na inta badan kooxda Arsenal hore u soo martay in uu yahay ciyaartayga kala dheelo ama inuu san markaa asigana aanaysiinin fursado abuureen qasabto inuu markaa gadaal tago sidaas maadaama ciyaaryahan Kelly iyo shanshati fara badan markaa baalkaas la gal u noqon weyday in markaasi kubad ay ka ama goolhayaha siiyo Martinelli marka waa eedaynta inta badan oo ay ciyaartoyda Arsenal ay macalinka ku eedeeyeen qaladka saaran ciyaaryahanka baalka la saar oo kubad siineen sida Bukayo Saka badan la soo kori jiray Ben White oo ay ka xirxiraydo boqolka ku socda dhinaciisa kubadda si raacsi jiray jirta marka in loo keeno ama waxyaabo fara badan Martinelli baalkiisa markii la ciyaaraya Luis California daba dheelaayo laakiin Luis ma aysan awoodi karin inuu kubadda qabsado dhinaciisa si Martinelli ugu baaso ama dib ay meesha soo keeno faa'iideysta laakiin saaxiibayaal aad baad u mahadsantahay mudan haddii aad nala soo gaartay mishkeena fadlan follow grey page-ka haddii aad rukumo oo saaxiibka dhigo follow inoo saar oo daawato haddana ahayn ama subscribe inoo ahayn page-kana sidoo kale waa naraysa ana follow inoo ahayn follow graysan barnaamijkan ka qurux badan ayaa jira aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi